بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأهلا سلام ولا له دنيا فكس كحرا. إن شاء الله وهلكم حنكون دوبنا 10 عن حق أهان أما عد أهان أصل دوبي يصور أهان أصل دقي كاسوة سيد باسور كلو بدلو ويب سايت كا FX بريمس ماشي العقد اللي يدي بوس جريو لجنا ويزدرو جريو ماشي dadka qaar macnaha waxay marmarba wax ka khaldamaan ama qof intay baasweerkooda siiyaan iyo haddana waxay damcaan inay bedelaan mana garanayaan si ay u bedeli lahaayeen marka walaalo badan ay dhib ku noqotay in ay fahmaan codkii ama sawirkii marka waxaa laga soo codsaday inaan video ahaan usoo duubo insha allah halkan asagaan ku duubi doonaa waxaa idin sheegayaa inaad ka heli doontaan youtube-keena wadani fx iyo janaalkeena waxaan ku dhahaa telegramka wadani fx kaas oo aan ku midoona walaalo dhan 1,200 qof qofkii aan ka badayahay insha Allah nagu soo biiro si uu cashiro badan oo faa'iido leh oo meesha insha Allah uga helo hadii aan hore u galno marka koowaad waxa lagaaga baahan yahay inaad soo gashid akoonka website-ka FX Bremes aad login taabatid kadib aad soo galisid password iyo username kaaga kadib markaad soo gashid kadib waxa taaban doontaa hadii Ilaahay yiraahdo meeshaas ay ku qoran tahay profile meesha profile ku qoran tahay insha Allah taaban doontaa haddii aan profileka ku dhufano oo isla fiirino waakana profilku noo keenay markuu profile noo keeno maxaan ka sii dooranaynaa si aan password ku bedelno change password meesha ku qoran tahay change password meeshaas insha Allah ayadan sii taaban doonaa waa step si aad u fudud qofkii arkaa insha Allah ma iloob doona haduu Ilaahay yiraahdo qofkii loobana videoga insha Allah YouTube kuna uu kaydsanaan doona ka faa'iideysta haduu Ilaahay yiraahdo walaalaha kale inuu u sii share gareeya waxaan ku dhufanay change password okay waa kana markii change password marka ku dhufanay uu noo keenay markuu noo keenay marka maxaan gelin doonaa inta meesha u horeysa password ay ku qoran tahay waxaan gelinaynaa passwordkii hore oo aan inaan bedelna arabnay intan waxaan gelinaynaa new password mar labaad ayaan new password hadana inta ku celinaynaa si confirmation ahaan aan ugu celino kadib waxaan leenahay meeshaas calaamad yar ay saaran tahay oo aan calaamadeynayo tick sar tigtaas hadii ku saarmato asaa ku saaray tigtaas waxa waaye passwordkaagu wuu adag yahay haddii meeshaas ay tick saar mooyso inta guduudkan uu ku soo baxo وجودكان كوسو بحماشاس تيك سار مويسو باسوركا سو جلعانيا waxay ku leeyihiin iska adkee waxa la rabaa in meeshan ay noqoto green meeshan ay noqoto tick inay saarmato hadii aan gelino baasorka inaan bedelo ma rabi aniga laakiin tusaale ahaan aad ku tuso oo aan gelino أقلي باسورك أنا بدل ربع هالكاس قلي أنت باسورك عسوان قلنا واركتان وحكا دقا يلو وويق واي لكن سترونج معها مركان سيوض وحديه دونا سترونج واركتان واركتان أنفلا haddii halkaas tigta saartid waxa muuqanayo passwordkaaga iyo waxaagii oo dhan tigta markaa saarin si aan lagaaga arkin waxa sameynaysaa aragtaan haddaan tigta ka qaan tigta aan saar passwordkeena uu muuqanaya marka ma hadda adiga kaliya hadda tahay oo passwordkaaga gashanaysid waa saaran kartaa waxa laga rabaa inta aad geliso kaleeto ina halkaan gelisid inta halkaan geliso kale halkaan inaan gelisid hadii aan dhaw copy paste aan ku sameeyo waxa laga rabaa in asaas isku yeeshaan hadii asaas isku yeelan waayaan update marka dhahdid ma qaadanayo meeshaasna waxa laga rabaa inay ku noqoto strong waa password adag wuxuu ka kooban yahay number iyo xarfo password ku adagna waa number iyo xarfo waxa ka sii adag laakiin passwordka numberka iyo xarfaha iyo symbolska ka kooban yihiin marka waxa isku dayaysaa ina strongigaas markaa heshid kadib update aad leedahay update markaa dhahdid saasuu passwordkaaga insha Allah kugu save garow doona waa saasuu kugu bedelan yahay
emailkaaga waxay kugu dirayaan gmailkaaga waxay kugu dirayaan email kaasoo kuu sheegaya inaa passwordka bedeshay passwordka aad ku bedelateen inta badan waxaa lagu qortaa book documents la samaystaa ama maxaan ku dhahay gmailkaaga intii screenshot laga qaado aa lagu shubtaa si aad u iloobin waxaan filayaa inaa fahanteen stepska aan marnay iyo saan wax dhan u gelgelinay waxaan dooranay profile waxaan kasii dooranay change password waxaan kasii dooranay passwordkeena hore inta gelinay intan waxaan gelinay passwordkeena cusbaa mar labaad ayaan kii cusbaa haddana ku celinay kadibna waxaan dhahnay update waxaan filayaa inay aad u fududahay oo aad u fahanteen hadduu ilaah yidhaahdo waxaan ku dareennaa waxaan asna cashar kasoo duubi doonaa insha allahu sida mt4ka looga bedelo asna haddii mt4kana aan hadda ku darno maadaama uu ahayn asna wax badan oo aad u fudud mt4ka wax yar uu ka duwan yahay waxaad tegeysaa mt4ka waxaad tegeysaa mt4ka waxaad tegeysaa meeshaas mt4 ay ku qoran tahay kadib waa click leedahay click ayaa ku siinaysaa meesha u dambeyso oo ku qoran tahay reset password ayaa ayadana tegeysaa qaybtaas u dambeyso ay ku qoran tahay reset password haddii aan ku dhufano reset password wuxuuna keenayaa meeshaan waxaan gelinaynaa passwordkeena hore ee aan rabnay inaan bedelno passwordkaaga hore oo rabtay inaad bedesho markaa gelisid kadib waxaa leedahay meeshaas ay ku qoran tahay reset ayaad taabanaysaa reset markaad taabatid halkaas waxaa laga rabaa asaa kuusoo muujinaya mt4kaaga caadiga passwordkiisu kuusoo muujinaya kadib waa reset leedahay reset markaad dhahay saas wuxuu kugu dirayaa gmailka wuxuu kugu dirayaa password gmailka markuu password kugu diro passwordkaaga cusub wuxuu kusoo diri doonaa email kaasoo kuu sheegaya inaa passwordka bedeshay waxaan filayaa ayadan inaa fahanteen waa wax aad u kooban wax badan ma aha wax la fahmi waynaya xataa ma aha waxaad tegeysaa mt4 meesha ku qoran tahay qaybta u hooseysa haddana tegeysaa reset passwordkaaga horaa inta gelinaysaa waxaa leedahay reset mt4kan waxaan filayaa inaa fahanteen waxaan halkaas kusoo gabagabeynaynaa cashirkii ahaa sidee loo bedelaa passwordka mt4ka iyo maxaan ku dhahay mt4ka iyo kan websiteka labadaba waa mahadsantihiin insha allah la sii wadaag walaalihiin youtube-kan subscribe saara share and like and comment telegramka qofkaana kamid ahayn ha kusoo biiro cashiro badan iyo waxyaabo badan insha allah soo dhigi doona hadduu ilaah yiraahdo asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu